kulanti wacan u wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha leh sida tooska ah wada nooga daawanayo halkani waa Albushra Media Production waad uga barateen inaanu idinka soo gudbino dhacdooyinka adduunka kuwooda ugu xiisaha badan la qodobada aan warkayga idinku tala galnayna waxa kamid ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Mohammed ibn Salman oo xabsiga u taxaabay qaar kamid ah foolaadka iyo raggii ugu tunka weynaa faamiliga boqortooyada kuwaasi oo ku eedeeyay inay u maleegayaan shirqool inqilaab oo ka dhanaysa cudurkii corona oo meel xun la sii marayo dunida iyadoo laga soo sheegayo inuu ku laayay madaxda asxaabta iyo qaar kamid ah xildhibaano dalalka Talyaaniga iyo Iran sidoo kale cudurkan ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalihii dunida ee isku xidhnaa kaasi oo la soo sheegayo inay gebi ahaanba musallafeen qaar kamid ah sharaa'iga adeegyada kala duwan ee bulshooyinka dunida kuwa bixiya adeegyada duulimaadka qodobka ugu horeeya ee ku aadan inqilaabka fashilmay ee dalka Sacuudigana waxaynu aqriyo doona Cali Daahir Maxamed Boos Cali Daahir mahadsanid Cabdi Samed maamulka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa xabsiga dhigay 3 amiir oo ka tirsan qoyska boqortooyada dalkaasi taasi oo tusaale muuqda u ah xoojinta awoodda dhaxal sugaha dalka Sacuudiga 3 amiir la xiray ayaa kala ahaa Ahmed ibn Abdul Aziz oo ah boqor Salman walaalkii sida uu dhigayo nidaamka dalkaasina ahaa dhaxal sugaha xaq u lahaa xukunka boqortooyada ahaana wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo Mohammed ibn Nayaf iyo Amir Nawaf ibn Nayaf sida ay tibaaxayaan wararka la xidhiidha xariga laba kamid ah 3 nin ee la xiray ayaa lagu eedeeyay khiyaano qaran madaxda Sacuudiga ayaa wax wara ka soo saarin xarigaasi warbaahinta caalamiga ayaa ku waramaysa in dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Mohammed ibn Salman oo ah wiilka uu dhalay boqorka Sacuudigu uu amray xariga mas'uuliyiintani waxa loogu yeeray khiyaamada qaran ee boqortooyada Sacuudigu ku eedeysay boqorada la xiray ayaa ku soo beegmaysa iyadoo umrada laga joojiyay dadka muslimiinta isla markaana la diiday in la galo masjidka barakaysan ee xaramka ee magaalada Makka al-Mukarrama iyo sidoo kale masjidun Nabawi ee magaalada Madiina taasi oo noqonaysa taariikhda markii ugu horeysay ee la xiro amaba dadka loo diido galitaanka masaajidaasi barakaysan xiritaanka masaajidani barakaysan waxa ay ku sababeeyeen maamulka Sacuudi Arabiya ka hortagga faafitaanka cudurka halista ee corona ee sida baan u saameeyay caalamka hase yeeshee hore umay dhicin xanuunadii safmarka ah ee caalamka soo maray in masaajidaasi la xiro amaba dadka loo diido iyadoo meel xun marayo fiditaanka cudurka coronavirus isla markaana uu saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha bulshooyinka dunida ayaa la soo sheegayaa inuu kor u kacay kiisaska la xiriira dadka uu ku asiibay dalalka Talyaaniga iyo Iran dalka Iran ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhacay 6,000 oo qof halka ay u dhinteen 145 cudurkan ayaa kor u sii dhaafayo 100,000 oo qof oo dunida daafaheeda kala duwan waa xildhibaankii labaad ee uu ku diro dalka Iran kaasi oo u dhintay cudurkan coronavirus-ka sida ay sheegayaan ila wareedyo ka soo baxaya waaxda caafimaadka dalkaasi waxa kale oo lagu sheegay ila wareedyada caafimaad ee dalka Iran inuu cudurkani kor ugu sii kacayo saameynta uu ku yeeshay bulshada ku nool dalkaasi dalka uu sida baan ugu dhuftay cudurkani ee qaaradda Yurub waa Talyaaniga ayaa laga soo sheegayaa isagana inuu si xun ugu sii fidayo waxaana la sheegayaa inuu ku dhacay qaar kamid ah madaxda iyo hogaamiyaasha axsaabta siyaasadda dalka Talyaaniga Nicolo Segregati hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ah ee bidix dhexe waxaanu bartiisa Facebook ku baahiyay inuu ku dhacay cudurkani kaasi oo sheegay inuu ayaamaha soo socda uu ku sugnaan doono gurigiisa kaasi oo isku riday karantiimo halka ay tirada dhimashaduna marayso 50 qof tirada kiisaska la xiriira cudurkani ee dalka Talyaaniga ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay kor u sii dhaafaysa 580 qof taasina waxa ay keentay in dib loo shaqaalaysiiyo shaqaalihii howlgabka ahaa ee dhinaca caafimaadka si loola dagaalamo cudurkani faraha baas ku haya bulshada dalka Talyaaniga dunida ayaa laga diiwaan geliyay in cudurkani u dhinteen ku dhawaad 3,500 oo qof oo dunida daafaheeda kala duwan kaas oo intooda badan ay ka soo jeedaan dalka China oo halkii uu ka bilaabmay dabayaaqadii sanadii 2019 cudurkani 24 saacadood ee ugu dambeeyay ayaa la sheegay in cudurkani ku dilay dalka Iran ku dhawaad 21 qof afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalka Iran oo lagu magacaabo Kainos Shahambur ayaa sheegay in uu tan iyo markii uu cudurkani ka bilaabmay dalka Iran uu ku dhacay ku dhawaad 16 oo qof oo ku nool dalkaasi Iran waxa uu intaas ku daray inay soo kabasho caafimaad ay heleen 1669 qof oo kamid ah dadkii uu cudurkani ku dhacay sarkaalka hay'adda caafimaadka adduunka ee ku sugan dalka Iran oo lagu magacaabo Dr. Christopher Hamilman
ayaa warbaahinta u sheegay in dalka Iiraan ay gunta dhiishiga iskaga dhigtay iyaga oo dadaalo ballaaran oo dhinaca caafimaadka ah sameysay si looga hortago cudurkan faraha baas ku haya bulshada dalkaasi. Dalalka uu cudurkan sida baan ugu sii fidaya ee la soo sheegayo ayaa ay ka mid yihiin in tirada dadka uu ku dhacay ay ku nool dalka Faransiiska ay marayso 716, dalka Jarmalka waa 684, dalka Isbaanishka waa 441, dalka Ingiriiska waa 206 qof, dalka Netherland waa 188 qof. haddaba ku dhawaad 80,000 oo qof oo ku nool dalka Shiinaha ayuu cudurkani ku dhacay tan iyo intii uu ka bilaabay magaalada Wuhan ee gobolka Hebei ee dalka Shiinaha, iyadoo uu tirada dadka u asiibay ee ku nool daafaha duniduna ay kor u sii dhaafayso 100,000 oo qof. mahadsanid Cabdi Samed. waxaan intaa ku soo gabagabaynaynaa wararkii caalamka aad kala socoteen xarunta warbaahinta Al-Bushra Media Production AMB. intaan ku kulmi doono warkan la midana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.